بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. waxaan filayaa waxyaalo fara badan oo waaqiceenna maanta khuseeya ayaa miiska noo saaraa. walaalaha hormuudka ka ah in la badbaadiyo ummadeenna, caqligooda iyo naftoodaba nabad iyo wada noolaansho lagu soo dabaalo, casharadeenii diiniga ahaa iyo waanooyinkeenii iyo baaqeenii nabadda ku salaysnaa iyo taxanihii maanfurka iyo hidadhowrka waxaa soo dhex galay dhacdo aada u fool xun oo xaqiiqatan inta damiirka leh ay ka hurdi waayeen, ka hargeli waayeen, qalbigooda iyo maankooduna uu qaadan waayey. marka loo fiiriyo dunida aan joogno, dhacdadu waxay ka mid tahay musiibooyinka dhaca, laakiin marka la eego qaabkay u dhacday iyo bulshada aan ka dhalanay, dhaqanka iyo hiddaha iyo sharafta iyo gobonnimada ilaahay ku manaystay iyo maanta meesha aan kasii daadegayno, wax aada u kala fog weeye. arrintaasi marka waxay kaliftay dhacdadii foosha xumayd oo gobolka mudug ka dhacday, oo gabdhaha da-da yar lagu dhibaateeyey, oo naf iyo sumcad iyo sharafba lagu waxyeeleeyey, inaanu caawa wax iska dhahno oo dadka meeshaa jooga raqaba ku raggeeda weeye aanu dardaaran iyo hadal aanu u dirno fartiin waxay noqotay lagama maarmaan. waxaan isku dayaynaa si aanaan duruucda uga habaabin, arrintu xanuunka ay leedahayna aanaan ula qalbi qaadmin, annagoo kontaroolayna damiirkeenna iyo darashadeenna inaanu isweydiino su-aalo dhowra. su-aasha koowaad waxay tahay, maxaa dhacay? waxa dhacayay ku dhaceen? yaa geystay? maxaa keenay falkaas inuu dhaco? xal maxay noola muuqataa? waxa dhacay waa dembiye fara badan oo ishuwan. kufsi baa dhacay, dhaawac jirdil ah baa dhacay, fadeexad baa dhacday, dhaawac maskaxeed baa dhacay, sharaf dhac deegaan baa dhacay, afduub iyo haysashaa dhacday. intaasuba waxay dhaceen ayadoo la adeegsanayo hubkaas ama hubka automatiga ha ahaado ama hubka loo yaqaano yani asilaaxu labyad oo gacanta laga isticmaalo ha ahaado. intaasaa dhacday. kufsi baa dhacay, dhaawac jirdil ah baa dhacay, fadeexad dad sharafla loo jeystay baa dhacay, dhaawac maskaxeed oo si looga qabsadaa ay culus tahay baa dhacay, sharaf dhac deegaan oo ummad hiddahooda loo jafay baa dhacday, afduub loo geystay gabdhahaasaa dhacay. su-aasha labaad waxay tahay, dhibaatadaasu yay ku dhacday? dhibaatadaasu waxay ku dhacday gabdho da-yar oo damiir leh. inay damiir leeyihiin waxaad ka garanaysaa marka ay jirkooda iyo sharaftooda qarinayaan ayagoo la qasbayo. gabdho diin leh inay diin leeyihiin waxaad ka garanaysaa marka ay dooranayso ay leedahay kow iga sii oo uu toorayda gelinayo oo ilaa idil intii aan xumaan iyo fadeexad aan jiri lahaa
oo ay ku bareertay ilaa laga awood bata maaha inaanay sharafteeda raqiis ku bixin oo karti leh inay karti leedahay waxaad ku garanaysaa sharaftay ula hadashay iyo siday u baryootamayso oo dhalashada iyo dhiigga xasuusinayso marka baalka uu goosanayo jirkeeda yaa geystay dhibaatadaas dhibaatada waxaa geystay wiilal iyaguna da'yar oo lagu barbaariyey raggu inuu muhiim yahay oo lagu barbaariyey xeer rageedku inuu wax walba ka sarreeyo sharci walba oo lagu barbaariyey dhibka ugu badan oo imaan kartaa inay tahay ninku gabadhuu kufsado in loo guuriyo oo lagu barbaariyey mar haddaan dhiig rageed daadan inaan xal loo waayey musiibo naaga ku dhacdayo dumar mentalitiga caynkaasa wiilal lagu ankariyey ayaa dhibta geystay maxaa keenay dhibtaas inay dhacdo dhibkaas inay dhacdo maxaa keenay anigu waxaan leeyahay kufsiga kufsi baa ka horreeyey waxaa keenay xaqiraada hooyada loo geystay waxaa keenay sida hooyada iyadoo la dhaqamaynayo oo la diimaynayo wax aan sal iyo raad lahayn sida damiirkeedii loo dilay kufsigaani wuxuu dhacay maalintii la yidhi raggu dumarka way ka hooseeyaan ilaa shaki la geliyey inay qof tahay iyo inay tahay alaabta guriga la isticmaalo qayb ka mid ah la yidhi ragga waad ka hooseysaa caqligaagaa dhiman diintaadaa dhiman diyadaadaa dhiman cawraa tahay gebigaaguba muuqaalkaagaa cawraa maqalkaagaa cawraa codkaagaa cawraa jiritaankaagaa cawraa markii la yidhi waxay ahayd ama inaad guri lagu hayo ama in god lagu rido ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab dhaqankii duugoobay markii lasoo faagay ninkii shalay sidaa lahaa waidaa bushira axaduhum bilunfa ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب قرق ميان كوهيا مسجدتا قليا عرب كي لها دقل كيسي مركا الدين لغا دقل مركا سالا كفصدي مسكحري الضمير كالا كفصدي مركي ليري إن لا تشهد أمكالانتو إن يتلسان أمكالانتو in la tala diliyana uma qalanto u fiirso markii la yidhi sii socodna shaydaan baa dhabarka ka saaran soo socodna shaydaan baa laabta ka saaran waana xarjo shaydaan markii la yidhi ayada iyo dameerka iyo eyga madoobaa isku mid ah oo saddexdaba qofkii hormaraa salaada waa ka jabtaa marka la yidhi xarjihii ibliiskaa tahay antunna xabaa'ilu shaytaan maalintaasaa damiirka iyo maanka laga kufsaday maalintaasaana ragga qalbiga loogu riday inaanu dumarku dhigooda ahayn zawjkii alla ka gees abuuray oo sharaf iyo qiimada la mid ahaa inaanay ahayn mar horaa la kufsaday kufsiga kufsi baa ka horreeyey godobtirku kufsi buu ahaa reerkii dhiigga iyo dilku dhex mara markay gogasha u tegaysa iyadoo qasban dumeelka aan waxba laga weydiin kufsi buu ahaa in la fahansiiyo in laga sarreeyaa kufsi bay ahayd in laga adeejiyo oo ay magan u noqoto arxan iyo akhlaaq midaan lahayn oo diimeeya in dumarku uu ka hooseeya ragga diimeeya oo dadka been u sheega in laga adeejiyo oo ay marti uga noqoto sharafteeda iyo sinaanteeda iyo wanaaggeeda kufsigu maalintaas u dhacay haddaanu doonayno dhibaatada dhacay inaan calalino inaanu ka eegno gees aan caadifad ahayn inaanu gudaha u galno kuma eka dhacdadii maanta dhacday
kuma eka wiilashii gaadiidka watay oo gabdhaha afduubtay oo duurka geeyey oo ilayska ku ifiyey oo cawradooda qaawiyey oo sharaftooda u dhacay oo ayagoo faraxsan muuqaal iyo maqal u soo duubay maantana kuwa aan damiirka lahayn bulshada ay dhex dhigayaan kuma eka intaas halganku intaa waa ka weyn yahay halganku waa hooyo dulaysan kor in loo soo qaado halganku waa abaalxumada in laga gudbo nin walba naaskuu nuugay maanta muxuu ugu abaalguday wuxuu ugu abaalguday kas caanagale kal caanagaleen kasma galo inuu yidhaahdo hooye caqli ma leh hooye oo wax ma garato war dumarku soo kuwiina dhalay maaha kuwii nala dhashay soo maaha kuwaan dhallay soo maaha kuwa noo dhaxay soo maaha dhigeenna soo maaha waxaan dad ku nahay soo maaha aadan markuu gaardiyaya isagoo keligiisa haddaan xaawo laga hareer samayn muxuu noloshaan ka qaban lahaa muxuu macnoo aadan samayn lahaa muxuu qiimo iyo yacni qaayo yeelan lahaa waa waxba aaway mawadadii aaway raxmaddii aaway tilmaantii alla uu ka tilmaamay zawj qur-aanku marna ma isticmaalin zawjatun qur-aanku wuxuu isticmaalaa zawj waa laba beer uskun anta wa zawjuka qur-aanku ma isticmaalo uskun anta wa zawjatuka qeexitaanka lab iyo dhadig ee kala hoosaynta ku salaysan qur-aanku ma yaqaan waa mid dhaqameed waa mid duugoobay waa mid dulli ah waa mid si qaldan loo diimeeyey waa mid dhaqan foolxun lagu saleeyey wax saxa ma ah maxaan kaga gudbi karnaa waxaan kaga gudbi karnaa in aanu ballan iyo axdi ku kala qaadano noloshayada inta aan nool lahay oo cimrigeega ka dhiman inta damiirka iyo dadnimada lahow inta hooyada jecelow inta hooyo ay macno u samayso every woman is a mother naag kasta waa hooyo haddaanay hooyo ku ahayn nin bay hooyo u tahay nin bay walaashi tahay nin bay xaaskiisa tahay nin baa qalbigiisa ka jecel inaan u noolaano inaan hooyada dullaynta farsamaysan oo dhaqanka iyo diinta sida khaldan oo siloon oo guracan loo macneeyey ku salaysan inaan ka saarno hooyada dadka dhibaatadaa geystay maxaan ka leenahay kuwa gacanta ku lahaya maxaan leenahay waxaan leenahay dadkaas waa in la marsiiyaa xeerka ciqaabta saxda ah ee maamulka ay hoos joogaan uu leeyahay oo sharciga islaamka iyo xeer ciqaabeedka maamulka puntland labadaba waafaqsan inaan xeer jajab iyo xeer soomaali iyo yacni waxa weeye mentalitigii dumarka yasay aan lagu salayn inaan la quursan xukunkaas in la marsiiyo ciqaab kale keenta gaar ahaan kuwooda qaangaarka ah in la marsiiyo ciqaab keenta inaan nin damba aanu isku dayin inuu sidaas qeexan oo qaawan dumarkayga u quursado waxaan ku talin lahaa qof walbow dib u eg baaritaan samee waxaanu soo aragnay soo arag hooyadu qiimaha ay leedahay baar laba jir markay gabadhu tahay inay hooyo tahay ogow inay haybadii hooyonimo ay wado ogow inay adduunkan aasaaskiista tahay ogow dadka dumarka qiimeeyey inay qiimo yeesheen ogow kuwa dumarka yasayna inay dulloobeen ogow deegaanba deegaanka uu dhaqankaas iyo diintaa sida guracan loo adeegsado ay kaga badan tahay dumarkuna waa looga quursi badan yahay dhibaatada gaartaana way ka tiro badan tahay inaan arrinta dhinaca caadifad aanaan ka eegin inaanu eegno maxaa looga hortagi karaa falkan inay
falkan inuu xaqiisii maro inay gabdhahaasi xaqoodii helaan inay damiir ahaan iyo jir ahaanba daawo helaan inay magdhow maskaxeed iyo mid jireedba helaan inay xuquuq saxa maraan in dambiilayaasha cadaaladda la horgeeyo in xeerka ciqaabta ee maamulka ay hoos joogaan la marsiiyo inaan xeer jajab iyo sidii dumarka loo dulayn jiray aan la samayn in wadaad xumo dulli ah oo awalba gabdhaha damiirka ka kufsaday oo inay noolaadaan hor istaagay oo yidhi cawraatiin isqariya oo yidhi codkiinna iyo muuqaalkiinna iyo maqalkiinna iyo maankiinna iyo magantiinnuba waa cawro oo awalba damiirka ka duleeyey inaan gacanta loo gelin inuusan xaq u lahayn inuusan xaq u lahayn kii hagoogta saaray asaguna hagoogta wata xaq uma laha inuu arrintaa ka taliyo arrintaas waa inay gacanta ku qabtaan dad damiir leh oo maamulka puntland iyo dowladda soomaaliya inay soo farageliso wey marnaba dambiilayaashu inaysan yani inaan lagu xadgudbin inaan lagu qofku hadduu dembi galo macnaheeda maaha inu asaga xuquuq lahayn dambiiluhu xuquuq buu leeyahay in lagu xadgudbo maaha qof caadifad leh inuu iska soo boodo oo ilaa saa hala sameeyo dadka hala laayo maaha dembigiisu waxa uu yahay dadka gacanta ku haya oo damiir kala la doona inay marsiiya lama doonayo odayaal xeer duuqeyo wata iyo wadaad xumayaal awalba shaksiyadu ka dhimatay oo dumarka duleeyey gacanta in loo geliyo lama rabo puntland maamul bay leedahay dad damiir lay leedahay maxkamaday leedahay degaankuna maxkamaduu leeyahay dad lagu kalsoon yahay buu leeyahay dadkaasi waa inay ka taliyaan waa inay mariyaan xeer ciqaabeedka saxda ah oo ayaguna aanay ku dulmanayn gabdhaha dhibka loo geystay iyo waalidiintood iyo degaanka sharaf dhaca loo geystay midna aanay dulmanayn annagu taladaan qabnaa sidaa wey tala caadifad ku salaysan maaha ilaahay subxaanahu watacaala raalli kama aha qofna in la dulmiyo wamaa rabuka lidalaam bidalaamin lcabiid ilahay addoommadiisa ma dulmiyo ilaahay dadkiisa ma dulmiyo inay isdulmiyaanna ilaahay ma rabo dulmiguna waa dulumaatun yowma alqiyaama mugdiyaal weeye in laga fogaado wey wax walba oo diin lagu sheego markii la miiro waxay isugu soo biyo shubtaan run iyo cadaalad cagsigoodana waa dulmi iyo been watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan waxaan leeyahay walaalayaalow watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan ilaahay oraahdiisii waxay ku soo biyo shubatay run iyo cadaalad runta ku dadaala ka run sheega kufsiga iyo zinada afar markhaati baa la rabaa markhaati ma aha markhaati ma aha markhaatigu qof lugaynaya ma aha markhaatigu waa qof markhaatigu waa maqal markhaatigu waa muuqaal markhaatigu waa kamarada markhaatigu waa biyaha ninka markhaatigu waa dhiigga markhaatigu waa gacantuu toorayda ku hayay markhaatiya dhammaan inta dembiyada caddaysa baa kufsiga iyo zinadana caddaysa crime waa crime dembi waa dembi markhaatiyaashu waa qaraa-inta wey qofkii afka arkaya waa markhaati gacantuu toorayda ku haya waa markhaati kamaradu ku duubay waa markhaati biyihiisu waa markhaati dhiiggiisu waa markhaati wax alla wixii evidence meesha yaalla waa markhaati wuxuuna waa markhaati ma doonto waxay u baahan tahay keliya qof fahansan sidqiga iyo cadligu inay yihiin aasaaskii dadnimada aasaaskii diinta aasaaskii damiirka aasaaskii dunida lagu taagay qof garanaya gacanta in loo geliyo arrinta ma habaabayso mana hoogayso waa ka hadli doonaa weligayna ka daali mayno sinaanta iyo ragga iyo dumarka weligayna waa ka hadlaynaa ilaa la helo equality ilaa la helo sinaan arrintaasu xal yeelan mayso kufsiga maskaxdu ilaa uu joogsado oo la istaajiyo oo dhammaan waxyaalaha beenta oo la diimeeyo toos lagu ifiyo oo la gabadha wiilku kama sarreeyo kama nolol sarreeyo kama sharaf sarreeyo kama diyo sarreeyo kama damiir sarreeyo kama caqli badna kama karti badna kama sharaf badna waa laba da waa laba zawj waa laba beer waa laba qof man camila saalixan min dakara unfa inay lab iyo dhadig yihiin wax macnaa ma samaynayso waxaa macno samaynay lab iyo dhadig waxa u dhexeeya waa biological difference wey kala duwanaansho abuuriseed wey ma aha mid sharafeed ma aha mid maskaxeed kam ahbal doqon ah oo dhaqankaa ku dhaqmaya oo garan waaya hablaha waa lala hadlaa
hablaha waa la qoslaa, hablaha waa la sheekaystaa, hablaha nolol baa la sameeyaa, hablaha waa la saaxiibaa, waa la guursadaa oo qaabkaa dulliga u dhaqmaya. ma 10kaas oo kale ah hal gabar oo sharaf la gaara? ma waxay gaaraan gabadhii lahayd idaa war miyaadan tol ahayn, war iga daa? ma taasuu sharaf ku gaadhaa? kabaheedana ma gaaro. dhammaan walaalaha muslimiinta oo iga soo wacay adduunka 4tiisa gees waan uga tacsiyeynayaa arrintaa dhacday, waana u caddaynayaa saan uga xunnahay. ma cambaaraynayno, tallaabaan qaadayna. dadka mas-uuliyiintana waa la hadlaynaa, qaar ka midna waa la hadlay, haddana waa la hadlaynaa, kala hari mayno. wallaahi baan ku dhaartay xukunka saxda ah oo sharciga maamulka puntland uu qabo, shareecada islaamkuna ay taageerayso, haddaan lagu qaadin dambiilayaasha gabdhahaasana jir iyo naf iyo maskax waxa gaaraya aan loo magdhabin. annagu adduunkani maaha adduunkii hore, adduunku waa global, weligaya ka hari mayno. kuwa gacanta ku haya xukunkaas ama odayaal xeer dhaqameed ha ahaadaan ama wadaad xumayaal ha ahaadaan, uga hari mayno. hadday xukunka afduubtaan, meel qaldanna ay ku furaan, adduunyada meelay joogaanba ka hari mayno. xeerka adduunkaan la tiigsanaynaa, maxkamadaha adduunkaan ka dacwoonaynaa, bini aadan damiir leh oo dadnimada hor dhigaynaa kiiska. waa waraysanay dadkii, evidencigii waa haynaa, wixii aan qori lahayn waa qornay, wixii qaldan iyo wixii saxan waa kala garanay, wax badan oo aan dhicin oo been la sheegay waa haynaa, wixii dhacayna waa haynaa. ma doonayno in dhibanayaasha la dulmiyo. buunin am yadusuhu fi turaab, guriga miyaan ku hayaa mase gudtaan geliyaa carabkii lahaa dhaqankiisii marka diin laga dhigay? markaasaa la kufsaday, maskaxda iyo damiirka laga kufsaday. markii la yidhi in la tashado uma qalanto, inay talisana uma qalanto, in la tala diliyana uma qalanto. u fiirso. markii la yidhi sii socodna shaydaan baa dhabarka ka saaran, soo socodna shaydaan baa laabta ka saaran, waana xarjo shaydaan. markii la yidhi ayada iyo dameerka iyo eyga madoobaa isku mid ah oo saddexdaba qofkii hormaraa salaada waa ka jabtaa. marka la yidhi xarjihii ibliiskaa tahay, antuna xabaa'ilu shaytaan, maalintaasaa damiirka iyo maanka laga kufsaday. maalintaasaana ragga qalbiga loogu riday inaanu dumarku dhigooda ahayn. zawjkii alla ka gees abuuray oo sharaf iyo qiimada la mid ahaa inaanay ahayn. mar horaa la kufsaday. kufsiga kufsi baa ka horreeyey, godobtirku kufsi buu ahaa. reerkii dhiigga iyo dilku dhex mara markay gogasha u tegaysa iyadoo qasban, dumaalka aan waxba laga weydiin kufsi buu ahaa. in la fahansiiyo in laga sarreeyaa kufsi bay ahayd. in laga adeejiyo oo ay magan u noqoto arxan iyo akhlaaq midaan lahayn oo diimeeya in dumarku uu ka hooseeya ragga, diimeeya oo dadka been u sheega, in laga adeejiyo oo ay marti uga noqoto sharafteeda iyo sinaanteeda iyo wanaaggeeda. kufsigu maalintaas u dhacay. haddaanu doonayno dhibaatada dhacay inaan calalino, inaanu ka eegno gees aan caadifad ahayn, inaanu gudaha u galno, kuma eka dhacdadii maanta dhacday, kuma eka wiilashii gaadiidka watay oo gabdhaha afduubtay oo duurka geeyey oo ilayska ku ifiyey oo cawradooda qaawiyey oo sharaftooda u dhacay oo ayagoo faraxsan muuqaal iyo maqal u soo duubay. maantana kuwa aan damiirka lahayn bulshadu ay dhex dhigayaan. kuma eka intaas. halganku intaa waa ka weyn yahay. halganku waa hooyo dulaysan kor in loo soo qaado. halganku waa abaalxumada in laga gudbo. nin walba naaskuu nuugay maanta muxuu ugu abaalguday? wuxuu ugu abaalguday kas caanagale, kal caanagaleen kasma galo. inuu yidhaahdo hooye caqli ma leh, hooye oo wax ma garato. war dumarku soo kuwiina dhalay maaha, kuwii nala dhashay soo maaha,
kuwaan dhallay soo maaha, kuwa noo dhaxay soo maaha, dhigeenna soo maaha, waxaan dad ku nahay soo maaha. aadan markuu gaardiyaya asagoo keligiisa haddaan xaawo laga hareer samayn muxuu noloshaan ka qaban lahaa? muxuu macnoo aadan samayn lahaa? muxuu qiimo iyo yani qaayo yeelan lahaa? waa waxba. aaway mawadadii, aaway raxmaddii, aaway tilmaantii alla uu ka tilmaamay zawj ninka ka kufsaday oo inay noolaadaan hor istaagay oo yidhi cawraatiin isqariya, oo yidhi codkiinna iyo muuqaalkiinna iyo maqalkiinna iyo maankiinna iyo magantiinnuba waa cawro, oo awalba damiirka ka duleeyey inaan gacanta loo gelin, inuusan xaq u lahayn, inuusan xaq u lahayn. kii hagoogta saaray asaguna hagoogta wata xaq uma laha inuu arrintaa ka taliyo. arrintaas waa inay gacanta ku qabtaan dad damiir leh oo maamulka Puntland iyo dowladda Soomaaliya inay soo farageliso way. marnaba dambiilayaashu inaysan yani inaan lagu xadgudbin, inaan lagu xad qofku hadduu dambi galo macnaheeda ma inuu asagu xuquuq lahayn. dambiiluhu xuquuq buu leeyahay, in lagu xadgudbo maaha. qof caadifad leh inuu iska soo boodo oo ilaa saa hala sameeyo dadka hala laayo maaha. dambigiisu waxa uu yahay dadka gacanta ku haya oo damiir kala la doonaya marsiya. lama doonayo odayaal xeer duuqeey wata iyo walaad xumayaal awalba shakhsiyadu ka dhimatay oo dumarka duleeyay gacanta in loo geliyo lama rabo. Puntland maamul bay leedahay, dad damiir lay leedahay, maxkamaday leedahay, degaankuna maxkamad uu leeyahay, dad lagu kalsoon yahay buu leeyahay. dadkaasi waa inay ka taliyaan, waa inay mariyaan xeer ciqaabeedka saxda ah oo ayaguna aanay ku dulmanayn gabdhaha dhibka loo geystay iyo waalidiintood iyo degaanka sharaf dhaca loo geystay midna aanay dulmanayn. annagu taladaan qabnaa sidaa wey. tala caadifad ku salaysan maaha. ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kama aha qofna in la dulmiyo. wamaa rabbuka lidalaam bidalaamin lcabiid. ilahay addoommadiisa ma dulmiyo, ilaahay dadkiisa ma dulmiyo. inay isdulmiyaanna ilaahay ma rabo. dulmiguna waa dulumaatun yowma alqiyaama, mugdiyaal weeye, in laga fogaado wey. wax walba oo diin lagu sheego markii la miiro waxay isugu soo biyo shubtaan run iyo cadaalad. cagsigoodana waa dulmi iyo been. watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan. waxaan leeyahay walaalayaalow, watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan. ilaahay oraahdiisii waxay ku soo biyo shubatay run iyo cadaalad. runta ku dadaala, ka run sheega. kufsiga iyo zinada afar markhaati baa la rabaa. markhaati ma aha, markhaati ma aha. markhaatigu qof lugaynaya ma aha. markhaatigu waa qof, markhaatigu waa maqal, markhaatigu waa muuqaal, markhaatigu waa kaamarada, markhaatigu waa biyaha ninka, markhaatigu waa dhiigga, markhaatigu waa gacantuu toorayda ku hayay, markhaatiya dhammaan inta dembiyada caddaysa baa kufsiga iyo zinadana caddaysa. crime waa crime, dembi waa dembi. markhaatiyaashu waa qaraa-inta wey. qofkii afka arkaya waa markhaati, gacantuu toorayda ku haya waa markhaati, kaamaradu ku duubay waa markhaati, biyihiisu waa markhaati, dhiiggiisu waa markhaati, wax alla wixii evidence meesha yaalla waa markhaati. wuxuuna waa markhaati ma doonto. waxay u baahan tahay keliya qof fahansan sidqiga iyo cadligu inay yihiin aasaaskii dadnimada, aasaaskii diinta, aasaaskii damiirka, aasaaskii dunida lagu taagay. qof garanaya gacanta in loo geliyo arrinta ma habaabayso mana hoogayso. waa ka hadli doonaa, weligayna ka daali mayno. sinaanta iyo ragga iyo dumarka weligayna waa ka hadlaynaa ilaa la helo equality, ilaa la helo sinaan. bismi illaahi araxmaani araxiim. alxamdu lilaahi wakafaa, والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. waxaan filayaa
waxyaalo fara badan oo waaqiceenna maanta khuseeya ayaa miiska noo saaraa. walaalaha hormuudka ka ah in la badbaadiyo ummadeenna caqligooda iyo naftoodaba nabad iyo wada noolaansho lagu soo dabaalo, casharadeenii diiniga ahaa iyo waanooyinkeenii iyo baaqeenii nabadda ku salaysnaa iyo taxanihii maanfurka iyo hidadhowrka waxaa soo dhex galay dhacdo aada u fool xun oo xaqiiqatan inta damiirka leh ay ka hurdi waayeen, ka hargeli waayeen, qalbigooda iyo maankooduna uu qaadan waayey. marka loo fiiriyo dunida aan joogno, dhacdadu waxay ka mid tahay musiibooyinka dhaca, laakiin marka la eego qaabkay u dhacday iyo bulshada aan ka dhalanay dhaqanka iyo hiddaha iyo sharafta iyo gobonnimada ilaahay ku manaystay iyo maanta meesha aan ka sii daadegayno wax aada u kala fog weeye. arrintaasi marka waxay kaliftay dhacdadii foosha xumayd oo gobolka mudug ka dhacday oo gabdhaha da-da yar lagu dhibaateeyey oo naf iyo sumcad iyo sharafba lagu waxyeeleeyey, inaanu caawa wax iska dhahno oo dadka meeshaa jooga raqaba ku raggeeda weeye aanu dardaaran iyo hadal aanu u dirno fartiin waxay noqotay lagama maarmaan. waxaan isku dayaynaa si aanaan dulucda uga habaabin arrintu xanuunka ay leedahayna aanaan ula qalbi qaadmin, annagoo kontaroolayna damiirkeenna iyo darashadeenna inaanu isweydiino su-aalo dhowra. su-aasha koowaad waxay tahay maxaa dhacay? waxa dhacayay ku dhaceen? yaa geystay? maxaa keenay falkaas inuu dhaco? xal maxay noola muuqataa? waxa dhacay waa dembiye fara badan oo ishuwan. kufsi baa dhacay, dhaawac jirdil ah baa dhacay, fadeexad baa dhacday, dhaawac maskaxeed baa dhacay, sharaf dhac deegaan baa dhacay, afduub iyo haysashaa dhacday. intaasuba waxay dhaceen ayadoo la adeegsanayo hub. qur-aanku marna ma isticmaalin zawjatun, qur-aanku wuxuu isticmaalaa zawj, waa laba beer. uskun anta wa zawjuka, qur-aanku ma isticmaalo uskun anta wa zawjatuka. qeexitaanka lab iyo dhadig ee kala hoosaynta ku salaysan qur-aanku ma yaqaan. waa mid dhaqameed, waa mid duugoobay, waa mid dulli ah, waa mid si qaldan loo diimeeyey, waa mid dhaqan foolxun lagu saleeyey. wax saxa ma ah. maxaan kaga gudbi karnaa? waxaan kaga gudbi karnaa in aanu ballan iyo axdi ku kala qaadanno noloshayada inta aan nool lahay oo cimrigeega ka dhiman, inta damiirka iyo dadnimada lahow, inta hooyada jecelow, inta hooyo ay macno u samayso. every woman is a mother. naag kasta waa hooyo. haddaanay hooyo ku ahayn, nin bay hooyo u tahay, nin bay walaashi tahay, nin bay xaaskiisa tahay, nin baa qalbigiisa ka jecel. inaan u noolaano, inaan hooyada dullaynta farsamaysan oo dhaqanka iyo diinta sida khaldan oo siloon oo guracan loo macneeyey ku salaysan inaan ka saarno hooyada. dadka dhibaatadaa geystay maxaan ka leenahay? kuwa gacanta ku lahaya maxaan leenahay? waxaan leenahay dadkaas waa in la marsiiyaa xeerka ciqaabta saxda ah ee maamulka ay hoos joogaan uu leeyahay, oo sharciga islaamka iyo xeer ciqaabeedka maamulka puntland labadaba waafaqsan. inaan xeer jajab iyo xeer soomaali iyo yacni waxa weeye mentalitigii dumarka yasay aan lagu salayn, inaan la quursan xukunkaas.
إلا مرسي عقاب كنتا جارهان كو ذا كان جاركا إلا مرسي عقاب كنتا إنا نندم بآن اسكدين إنو سداس قيحان أو قاون دمر تيغو قرصرو waxaan ku talin lahaa qof walba dib u eg baaritaan samee waxaanu soo aragnay soo arag hooyadu qiimaha ay leedahay baar laba jir markay gabadhu tahay inay hooyo tahay ogow inay haybadii hooyanimo ay wado ogow inay adduunkan aasaaskiista tahay ogow dadka dumarka qiimeeyey inay qiimo yeesheen ogow kuwa dumarka yasayna inay duloobeen ogow deegaanba deegaanka uu dhaqankaas iyo diintaa sida guracan loo adeegsado ay kaga badan tahay dumarkuna waa looga quursi badan yahay dhibaatada gaartaana way ka tiro badan tahay inaan arrinta dhinaca caadifad aanaan ka eegin inaanu eegno maxaa looga hortagi karaa falkan inay falkan inuu xaqiisii maro inay gabdhahaasi xaqoodii helaan inay damiir ahaan iyo jir ahaanba daawo helaan inay magdhow maskaxeed iyo mid jireedba helaan inay xuquuq saxa maraan in dambiilayaasha cadaaladda la horgeeyo in xeerka ciqaabta ee maamulka ay hoos joogaan la marsiiyo inaan xeer jajab iyo sidii dumarka loo dullayn jiray aan la samayn in wadaad xumo dulli ah oo awalba gabdhaha damiir hubkaas ama hubka automatiga ha ahaado ama hubka loo yaqaano yani asilaaxu alabyad oo gacanta laga isticmaalo ha ahaado intaasaa dhacday kufsi baa dhacay dhaawac jirdil ah baa dhacay fadeexad dad sharafla loo jeystay baa dhacay dhaawac maskaxeed oo si looga qabsadaa ay culus tahay baa dhacay sharaf dhac deegaan oo ummad hiddahooda loo jafay baa dhacday afduub loo geystay gabdhahaasaa dhacay su-aasha labaad waxay tahay dhibaatadaasu yay ku dhacday dhibaatadaasu waxay ku dhacday gabdho da'yar oo damiir leh inay damiir leeyihiin waxaad ka garanaysaa marka ay jirkooda iyo sharaftooda qarinayaan ayagoo la qasbayo gabdho diin leh inay diin leeyihiin waxaad ka garanaysaa marka ay dooranayso ay leedahay kow iga sii oo uu toorayda gelinayo oo ilada idil intii aan xumaan iyo fadeexad aan jeli lahaa oo ay ku bareertay ilaa laga awood bata maaha inaanay sharafteeda raqiis ku bixin oo karti leh inay karti leedahay waxaad ku garanaysaa sharaftay ula hadashay iyo siday u baryootamayso oo ay dhalashada iyo dhiigga xasuusinayso marka baalka uu goosanayo jirkeeda yaa geystay dhibaatadaas dhibaatada waxaa geystay wiilal iyaguna da'yar oo lagu barbaariyey raggu inuu muhiim yahay oo lagu barbaariyey xeer rageedku inuu wax walba ka sarreeyo sharci walba oo lagu barbaariyey dhibka ugu badan oo imaan kartaa inay tahay ninku gabadhuu kufsado in loo guuriyo oo lagu barbaariyey mar haddaan dhiig rageed daadan inaan xal loo waayey musiibo naaga ku dhacdayo dumar mentalitiga caynkaasa wiilal lagu ankariyey ayaa dhibta geystay maxaa keenay dhibtaas inay dhacdo dhibkaas inay dhacdo maxaa keenay anigu waxaan leeyahay kufsi baa ka horreeyey waxaa keenay xaqiraada hooyada loo geystay waxaa keenay sida hooyada iyadoo la dhaqamaynayo oo la diimaynayo wax aan sal iyo raad lahayn sida damiirkeedii loo dilay kufsigaani wuxuu dhacay maalintii la yidhi raggu dumarka way ka hooseeyaan ilaa shaki la geliyey inay qof tahay iyo inay tahay alaabta guriga la isticmaalo qayb ka mid ah la yidhi ragga waad ka hooseysaa caqligaagaa dhiman diintaadaa dhiman diyadaadaa dhiman cawraa tahay gebigaaguba
muuqaalkaaga cawra maqalkaaga cawra codkaaga cawra jiritaankaaga cawra markii la yidhi waxay ahayd ama inaad guri lagu hayo ama in god lagu rido ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab dhaqankii duugoobay markii lasoo faagay ninkii shalay sidaa lahaa waidaa bushira axaduhum bilunha ظل وجهه مسودا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على